رجل الله يرضى دقيق عدة كجلان قبلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كبعدي مهض ضمان عوصناتي الله سكوك أنا كان ماشي المانتا حفلة وروح ضبضن قيمها له إن كان ولكن عبد الناصر أوركتاي مهض كبعدي والله ليال إذن كانوا ما سنتين ذلك حوفي عن نينك أنت وقف ويرتو هذا أنا أجيبه أصلا وقف بلانتي كصباحي إذن كان أساس أول ما سنتين أنت كبعدي سيف أنا اللي مقلصه أنت كبعدي وأنا مقليني نينك ولكن عبد الناصر أصلا نو يرتي أهرب نو يرتي وأنا نطلع وأنا دلنيره وأنا متعلمه waxa uu noo sheegay kursiga dheertu inuu hawooday uu qalmasamo nin hawooday maxaa uu hawooday lama dhahayo uu hawooni waxa la qolo kale wiilal kale oo dhalinyaro cid inay soo hawoodeen waa saa ka dambeeyaan laakiin hadda si intaan ognahay wax dhalinyaro oo cid ninka ugu horeeyay ee arintan noo keena way soo wax kala maqashan وحد ذاك سكول يرى واسع وهري مك عبد الناصر سودو أنت هذا كجذبه كرسي ديرتو مرحلة فربان بوسمر ديرتو ومقالة يعني سو هذا نكون وش وحير وقضايا واصح وحيلا بنا عند مع سنن ديرتو إننا قطعة حسب كاونتي ومقالة كل إيريا لا ممكن لا جالس دي وقفت وحارنا حسب كاونتي إن لا جالس شقيه هذا نين ولكن بكجرة ما شاء الله كمان خسارين شغلنا وجرة دفع كشقنا مقالة سبكونتين نقطة وأنك هذا MC أنا مدنها هذا أنا عن صدرنا يا كجرة هذا ونوتين وحن ونقولي سكوديب مر بنين بايماني ثلاث عدة يا واحد دنا عدة كده حاسو وينودم بيسا لكن ما دام إنك ولكن هذا وسهو ولي وننو يرتي وأنا أجيبنا وحيد طلعنا ها نودم بس وهنا من سنة هاي نين كرسي ما توقع المي لكن إسقوا هذه لها محلج المتعلم كرسي كان سيدي وكل على الهوية هاي مركب وحنا لنا هاي وحيد كلا طلع وحيد نودم بيان لكن إنك وانا دلنا يرى هذا أنا قرب إناس نصمه مركب هالكن أنا سيب بدي مرة حاجة أقومها كرسي ولوس استوي نين هلا نين نارتي وايبة نك إله وقرينا مجفاه ديرتنا وحن خربنا سيدا هذا إيه سكة قربان يعني نقول سيدا هذا ما أنت جوبته سك مربى مرحلة يسوم رئيسي سي معناها ما أنت مش ملك كافي عن أي يوسي جارته لذلك أنا حلنا كل حماها أنا ورينا خوض شغلنا واي سياس أوجد ركب يقدم بحل دونا أو ما يلبان تاون دونا وحالا نكا قرب هلا سياسة نو يرتي حبدا أساس قال مانتا ونو يرتي تلقو كم يدي هاي ركض لين يرد مانتا هونا وكم يدي هاي إنك أوري نو يرتي واي إنك أساس قرب أنسينا هلا شقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ولكن عبد الناصر وما سني هاي عن لين وانين لين يراه وانين أدو فرعون ولين يرت مان تذك قرب استيان أيو كم يدي هاي أو أنكو حساب تنو وحنا شيء إنه كرسي MC ورادنا walaalkan waan soo dhaweynayna waa nin soo hawooday nin haduu soo hawoodo waxa uu soo hawooday lama dhaha walaalow soo dhawaaw kursiga waad u qalantaa ilaa hadda waqti baa dhiman insha Allah markii waqtigeeda la gaarana hoos aan baan tala u galeynaa inta waxa ii dheer Soomaalidu waxay dhahdaa hewlo waxaad ogtay ma ku sheega waxa ogtaa jira muddo dheerna way noo dhiman tahay haddana saacadan la joogo kursiga nin walaalkan yaa ku fadhiya kursigana waxa waayo sida qof la soo doonayo qofta markii la soo doonayo waxay u yar duwan tahay qofta markii la soo doonayo aabaheed iyo ehelkeeda loo soo doona ayaa laga soo doonaa laakiin kan bulshadaada yaad isku yeeray u soo doonan kursiga hadda nin buu meher ugu xiran yahay hadday gabar nin ku xiranna hadda kuma siini karno ilaa nin u qalmo oo maalinta waqtigeeda la gaaro kursiga ku haboon waa tahay walaalow soo dhawaaw waxa taay dheer Redal Abdullah markii la dhaho 2017
ilaa iyo 2013 history marka dib loogu noqdo ilaa iyo 2027 baa hadda lagu socdaa inta anagana hami baan lahayn oo kursi baarlamaan baan doonnaa waxaan u malayn runta markii la isku sheegay caqabada u weyn oona haasatana badi waa kursigan MCA wax reedala dhexdiisa uu ku kala tago ama reefgab uu nooga tago waa kursiga reedal haddaan nahay insha Allah waqtigeeda markii la gaaro kursigan waa loo tashan talab weyn yuu lahaani hadda waxaan ognahay dad badan baa soo qooqan Cabdinaasir baa hadda noo soo horeeyay waan ku maqalnaa waan ku soo dhaweynaynaa rag kale oo badan oo soo qooqay kuura markii dhicitaankiisa la gaarana in badan oo sidan oo kale walaal yaa markii kursigan waqtigiisa la gaaro yay kaaga tagayeen oo hooshi kale oo muhiimka ah bay ka tagayeen kursigan bay u hanaaqayeen marka walaalo soo dhawaw insha Allah waan tashanaynaa waqti ma dhawo dib baa loo tashan taladii reer dalal ayadana way socotaa waan la soconnaa waan ognahay midan anaka aan ugu yeertana waan ku maqalnay waa inoo yeertay waan ku soo ajiibnay niyo furan aan kugu soo dhaweynaynaa mahad celin kadib ninkan horta walaalkan Cabdinaasir waa ninka hore hawooday oo maanta dhalinyarta hadda macna waqti hadda 2027 insha Allah doorasho socoto ninka hore aan dhahay wax waan rabaa asaga waay kuus inta maashi fadhi ku tuwa beeshra dalso dadka lagu jira waxaan maleen maan hore shir buu ku dhigtay Nairobi ani inaan joogan jecel laakiin ma aadin waan ka mashquulay kana waa kii horeeyay kii aamin kii labaad kuwa badan oo kale ma rajeynaa marka oo dad maxaa leeyahay walaalkan Cabdinaasir welcome gacmo fadlan ku soo dhaweynaynaa because waa nin walaalkan anaga naga mid ah oo hawoodo wax sheegtay ninka raggan markuu hawoodo waa in taayar lagu sameeyo ayaa la siiya fiicno inaan macnaha aan boqon la qabto fiicno waa horta marka in taayar loo sameeyo dad kalena insha Allah way haween doonaa ayaga imaan doona oo badan laakiin this is a first person oo macnaha noo sheegtay maxaa la jira marka waxaa leena soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow kursiga hadda oo macnaha u hawoodina waa kursi dheertu kursiga dheertuna waxaa iska leh cid reedal samo badana intaan soo aqli kulli cid reedal ma ka soo gashaa meeshaas haddana ninka haya waa nin walaalkeen ah waa nin cid ah waa nin aan jecel asagana waxaan leenahay xilkaas intuu ka dhamaanayo macnaha duu si damad u soo qabtana ilaahay u soo fooday inta hadda ka dhamanay in shaqadu ah ilaahay u fooday aan leenahay markii koobaad Cabdinaasir waxaan leenahay welcome ciidan insha Allah dib isku noqon doonta tashan doonta Cabdinaasir waxaan macnaha asna aqoonsanahay oo la socdo because aan this guy aan isa waqti badan soo marnay hadda isku horeys koobshan soo ab jirnay waa nin tolka macnaha ku dhex jiro waa nin tolka meeshay mariyaan diyaar u ah nin tolka baxsan maaha marka tolka wuxuu raacaan boona diyaar ku marka waxa leena soo dhawow welcome garab iyo taageeraan ku siinayna inta kale imaan doonta cid wala wadatin doona hal qof oo fiican baan oo cid u qalman baan soo qaadan doona kursi hal qof baan insha Allah yaan geesin doona wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh say hadda odayaashii igu horreeyay u hadleen u sheegeen waxaan filayaa walaalkeen kulli rabitaankiisu noo sheegay inagana waxaan nahay tolkiisi qofku hadduu wax damco wuxuu inta badan oo la imaadaa waxa weeye tolka way marka tolkiina waa inaga marka waxay ila tahay si hadda la sheegay hortayba la sheegay dad badan oo kulli rabitaan iyo damac badan uu ku jira laakiin hadda Naasir waa ninkii koobaad ee noogu soo horeeyay way waxaan leeyahay walaalkeen soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow kulli codsigaada waan maqlay waxa weeyo nin u qalmana waa tahay xaqiiqdii nin hadda maanta lagu bedeli lahaa anu ma ima muuqanin laakiin wuu mudan yahay in maaragtay la taageero oo la garab istaago oo walaal noo noqdo wuu mudan yahay inta kale iman doontana dee waa walaal sida kulli hadda ay odayaasha sheegeen waxa weeyo in uun reerkii tashi loo muujiyo oo dib loo noqdo oo nin walbo imaado codsi keensada la dhageysto tashiga ugu dambeeya laakiin waxa weeye maanta inaan garab istaagno oo walaalkeen soo dhaweyno rabitaankiisii aan aqbalay oo maaragtay aan qaadanay wixii dambe imaan doonana insha Allah haddii Ilaahay raadiyadana tashigeeda yeelan doonta dhammaantiin horta waa maasantiin hadalku waa lagu gaaday ma moodin inaan hadlaye haddaan ogi inaan hadlayo waa isasii diyaarin lahayn hoosta baan iga soo geliyey sida kale dhammaantiin waa maasantihiin walaalkan Cabdinaasir ninka ugu hore soo hawooda ma aha dad badan baa soo hawoon jireen dadna kursigu heli jiray dadna huwaan jiray dadkii uu ka mid yahay anaga waxaan leenahay walaalkeena soo dhawaado
waxaan u malayn insha Allah biidni illaahi alkariim in muddo gaabanba ay arrintan iska soo afjarmi doonto oo kursigan dheertu wax ka weyn rajayna reer dalhadan saas ma hadda dheertu MCA way qabtaa hal cunuga fees laga bixiyana ma jirto saas ma laakiin kursi waxaa jira fees ilmaha ka bixinayo ummadda awlihan iyo reer afgaab oo dhanba deeqayo reer afgaabna maanta wuxuu na siiyey opportunity oo u dheer reer dallo soo tashada oo wiilku keena marka ayada midaasna inaan xoogga saarno midana ana keena gooda mise hebelna aan siino hebelna aan reebno laakiin muhiimadayna waxa waaye in ma aragtay kursiga weynaana aan raasino kanna waxayba ku dhibirtabo dheertu wood isbuuc ma gaartabo arrintiis hebel ma siina la dhigi arrintiis saas ay ku marka dhamaanteen xoogga aan saarno kursiga imbiga Cabdinaasirna walaalkeen kursigan dheerta waxaad annaga aan niyad u sheegayno oo aan meel kale aan ka istaagi karin kursiga dheerta jira dhammaantood kama istaagi karno raaf gaabana la haystaa oo kala taagan oo uga daynay aba khayl muumin xasan baan u daay kursiga dheerta kaliba annaga yaa noo bannaan dalal cabdille uu ballaan kii soo garo oo wiil ahoo dalal cabdille waa barqacaan macaan waxaad moodaa kursigan MCA iyo kan MBga MCA inuu noo daran yahay moodaa nooma darnee MBga baa nooga sii daran kan annaga u baaba soo galaynaayo ruux kaloo soo gali maba jiro kan awliyaa baa kula haystaa kii awliyaa kula haystay bari hore hadda markii aan kuuraha ridayno dalal cabdille baa dagaalamay wuxuu ku dagaalamina waa MCA MBga hilmaanay wax MBga soo tabow waa la waay nin walba uu sii daayna MCA buu ku horday horta inaan MBga aan soo tagno oo MBga xilka iska saar yaa aad u fiican MCA gana hadee kii soo galay barqacaan macaan waayaba waxba yaan u soo mashquulin MBga xooga hala saaro waxaa kaloo jirta niman MBga markaan xagiisa ka hadlo awliyahan baa meesha taagan awliyahan baa nala taagan awliyahanka nala taagna reer dalalow waxaa la rabaa inaan reer afgaab baa taagan baa reer afgaab wuxuu yidhi reer dalalow ninkeen ninka waa ku maqan ninkaan isla garanno un baana keenayna wayna nayar dhaafsiisanta oo odayaal baa meesha yaa gacanta ku hayaan iyo wadaadada iyo odayaasha waxay noo keenaan un baan raalli kanne intaan un baan ka wada midaysan Cabdinaasirow soo dhawow inta waa intii kula dhalatay intii aad gogasha u dhigan lahayd waaye ayagana haddii ay imaadeen oo gogashaadii soo daakhileen khayr allah siiyo way mahadsan yihiin sidaa ayada baan aniga ku dhameeyay walaalayaal waad mahadsantihiin aad baa u mahadsantihiin boqolkiiba boqol maadaama aad soo ajiibteen walaalkiin codsigiisii oo ahaa inuu sheegto maxaa lihi jiray arrintaa uu muddada dheer hadda kusoo jiray siyaasadda ah ee kursiga MCA-ga dheertu codsigiisii uu idiin soo yeedhay waad soo ajiibteen taasaad ku mahadsantihiin markaan ka hadlo aniga ra'yigayga dad walaalo ehelo wada dhashaan nahay qoys hoosaan nahay marka ninkii wax rabo oo wax damco inaan maaragtay isku yeedhano ka dhalinyaro ahaan iyo ka walaal ahaan aan maaragtay iska codsanno wixii maaragtay siyaasad adduunka loo orday waa arrin maaragtay aad muhiim u ah marka Cabdinaasir waa nin dhalinyaro aad u wanaagsan oo walaalkeena runtii aadna u furfuran dhalinyarada reer dalal iyo reer afgaabba maaragtay nin maaragtay hadda MCA dad badan baa waxay leeyihin war MCA show kumaad fiicneen MB iyo kuraas kale aad raadsan lahayd balse asaga hadda wuxuu dhahay hoos baa wax ka soo bilaabi geedka hoosta laga soo fuulaa marka waa nin maaragtay u qalma kursiga iyo kursi ka weyn inaan maaragtay gadaal isku dhigno oo aan inaga lafteena maaragtay odayaasha maaragtay la dhahay reerka xogow jaambay geliyeen oo isku rideen inaga dhalinyarada lafteena inaan maaragtay lugaha is yar qabano oo gadaal isku dhigno ma ahan ninkii dhalinyaro walaalo imaada
oo dhaa wax baan rabaa inaan garab istaagno waay cabdinaasir keliya ma ahee muun goglanin ninkan dhaho cabdirasaaq naanaystiisu ay tahay garow isaga laftiisa kursi buu rabaa kursi weliba muhim uu rabaayo maaragtay isagana aad u wanaagsan inaan maaragtay isgarab istaagno maaragtay nin kastoo walaalaho wax rabana la garab la siiyo talo la siiyo maaragtay waa mid aad u muhiimsan markaan dib u noqdo reedal hadda talay ku jiraan maadaama 10 sano ama 15 sano u dambeeyay ay maaragtay kursi ay dooneen oo hawoodeen haddana aysan helin oo ilaahay u qorin haddana waxaa lagu jiraa process waxaa socda in maaragtay reerkii la mideeyo kursina la doonto kursiga weynaa imbiga wax kalena la sii doonto maaragtay meelo kale wax laga raadsado taana way socotaa meel fiican bayna mari waxaan rajaynaynaa insha Allah inuu ka soo baxo wax wanaagsan oo midho dhal ah oo reer dal oo dhan iyo reer afgaab iyo cawliyahan badan ugu jirto marka taana way jirtaa ta Cabdinaasir waa ninka koowaad oo gobol inoo dhigta ani hadda ma xasuustay nin ka horeeyay hadda 2025 ama 2024 nin gobol dhigtay ma jirto asaga hadda u horeeyay maadaama nin dhalinyaraan yahay kursigiina uu qalmo innagana hoosta uu ka bilaabo reer dalahan walaalayaal kursigaasaan rabaa garab igu siiya inaan annaga garab istaagno waa xaq uu leeyahay waay walaalkan uu nagu leeyahay marka waxaan leeyahay nimada qalbiga la isku furo walaalnimo la muujiyo kursiga dheertuna waa inta badan waa one time marka bal 5 sano Cabdinaasir waxaan rajaynaynaa markuu waduu ilaahay u qoro kursiga aan geyno in berri kuraas ka waaweyn uu raadsan doono maaragtay dadkan ku xisaabtami doono ka mid noqon doona rajaynaynaa saan annaga aan maaragtay niyo badan baan u leenahay maaragtay aan ka rajaynaynaa insha Allah reedalo waa salaamantiin waa maasantiin midda kale waxaan ka dhihi Cabdinaasir walaalkan hadda Cabdinaasir qofaas garin uu jiro oo ma maleynay annakoo dhan aqoon baan u leenahay laakiin aan shakhsiyan saaxiib baan nahay hadda ka hor waxaan xasuustaa ani asagoo iskuul akhrisanayno yaa meesha hadda wax ka raba kabaanina laga soo fiijiyay oo naloo diiday marka kulleeyta waxaan baa keenay laakiin hadda waxaan malay arinta ayada asagan hadda dadku inuu soo fiijin anaka waaga nin xilmaan baan soo fiijiyay waxaan leeyahay midda kale Cabdinaasir walaalow soo dhawow tolka waa walaal sidii ninka macalinka Cabdixakiin uu sheegay kursiga hadda nin baa ku fadhiya waa nin oday ah reerka ah saan hadda u fadhino ma asagana ku geena asagana annaka buu naga mid yahay haddaan maanta aan u baahno aan dhahno baasha waa iska one time dheertu wali lama ha u malay wax tuu taam jireen nin kasta hadii la sogotay daal annaka dhan wuu deeqa dal dhan wuu deeqi marka waxaan ku dhihi lahaa soo dhawow nin walaal ba tahay oo kursiga ku haboon ninka hadda kursiga looga dambeyn lahaa ba tahay laakiin hadda meesha ma taalo iqaad iyo idhig ma taalo waa un ogaada walaalahan waan ku maqalnay waa mahadsan tahay aniga midda kale aan kugu darsanahay waxa waay midnimada reerka ha laga shaqeeyo annaga hadda inta maanta dadka hadda ma ka fiiriso dad isku yar cusub u yar eg waana dad wala dhashay waxaana waxa kala geeyay dadka siyaasadihiina soo mareen ee waxaan baana kala geeyeen marka siyaasadda waxa malantii hadda u dambeysay waa la yar kala tagay waa la kala baxay laakiin ugu dambeyn midda u dambaysa ka nacay tan hadda maanta 2027 aanu ololeenino tan ka sii dambaysan ninkii gaaraa ka sii macaan oona ka waxtar badan marka waxa la dhihi jiray midnimada walaalow adigoo ku dadaalayso dhalinta rag intan meesha joogto boqol waxa laga yaabaa dad ay haba ku jirto hebel igu hor sheegtay ma ooyay in kala imaan doonta marka waxaan anigaan dhihi lahaa inay la iswanaajiyo hadal wanaagsan la isku wanaajiyo ninkii wax raba la fiijinin adiga haddaad maanta aad annaka noo goglatay walaaw annaka waan ku maqalnay waana mahadsan tahay soo dhawow waa mahadsantiin akhyaarta iyo gabdhaha waxaan u maleynayaa Cabdinaasir direct ugu galay arrinta I think 3 jeerniya aan ku soo dhisnay dhirto 3daba aad baan uga soo qayb qaatay wixii awaal ku hayay waxaan ku haynin I think will be the fourth one so qofka afaraad ahaan insha Allah laba marka raba inaan kala qaado Cabdinaasir waan ku qaadno haddaan ku qaadno dad badan laga yaabo ka dambe so laakiin insha Allah waxaan maleynaa السلام ورحمة الله وبركاته حاولنا marka isla qiyaasnay isla bambadhignay gadine
the most favorite inaan noqotay adi hadduu ilaahay insha allah nuu garab istaago annagana waan ku dadaalaynaa adina dhexgal bulshada dhirta oo dhan ha ka marnaanin intan oo tol hadda ku soo baxay wax kaa reeban ma laha umaleynaa laakiin hadda waa li qaaday miiska la soo istaagin shaqo badanaa ku taalla waqtigeena weli waaye khayr baan ku rajayn insha allah wuu ku mahadsan yahay wiilka walaalkeena si u soo ajiibo kursiga waana ku raacsannahay waa idin salaamay dhammaantiin akhyaarta waan ku faraxsannahay wiilka walaalkeen ah waana soo dhawaynaynaa wuuna mahadsan yahay wuu hawooday maxaa u hawootayna lama dhahaayo walaalow soo dhawow welcome waan ku faraxsannahay waxaan u maleynayay shirka ganaamidkiisaan joognaa horta dhammaantiin marka kuwaad alla subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh oo halkan iskugu kan keenay marka xigtana dhammaantiin sida sharafta badan aad igu soo ajibtiin shirka ayadana waan halkan waxaan rabaa inaan iga mahad celiyo waxaa la yidhi wakti gaaban iyo hadal kooban waxaan rabaa awalan inaan ku bilaabo horta midnimada reerka waa lagu celceliyey midnimada reerka waa muhiim waxaan u maleynaya nin walbo midnimada naas la nuuga leh nin walba midnimada dan u tahay reer dalal bay dan u tahay reer afgaab bay dan u tahay cawlihan bay dan u tahay ogaadeen bay dan u tahay waxaan rabaa marka koowaad midnimada reerka in laga shaqeeyo waa shay muhiim ah waxaa looga dhawaajiyey waxaan u maleyn gooshan gool MCA oo dhirtu ward ayay ahayd laakiin tolkii haddana wixii dhibaayo waa inuu ka hadlaa kursiga MCA dhirtu arrintiisa hadda wax muran kolley kuma jirto inta meeshan fadhido iyo inta la midka ah wixii qofkay soo qaadaan ama ay u gortaan ayaa kolley horta meesha la siinay madaxtinimadan ilaahay baa bixiya ani waan idinku kalsoonahay dhammaantiin wajiyadan aad u quruxda badan ee meeshan iskugu imaaday sida aan filahay inay kursigaas kolley wixii aan ka soo doontay waa kuuraha iyo wax ka badanna waa la siiyaa inay siinaysiin baan dhammaantiin aaminsanahay marka kolley gawasha ugu horreysay ee gaaris aan ku furo ayay tan tahay waxaan markaa rabaa inaan ka shaqeyno siday sheegeen nimankii igu horreeyey walaaladey midnimada reerka in laga shaqeeyo kursiga MB-ga ee reerkan uu ku kala maqan yahayna waxaan u maleyn process oo waqti aad u dheer qaatay oo niman culamo oo wadaado lagu kalsoon yahay ay gacanta ku hayaan niman guddi oo duqeey oo tolka raggii ugu firfircoonaa ee talada ay ka go'day ay ka mid yihiinna lagu daray oo guddi kooban oo 27 qof inay yihiin aan filaayo ay hawsha processka ku jira waxaan filayaa kulli wixii ka soo baxo wax danta guud ee reer dalal ka shaqeynaya bay kulli la imaan doonaan wax maanta reer dalal ay ku kala tagaan kama filan inay ragaas keenaan arrintaas ayadana waxaan leenahay arrin adag oo mas'uuliyad ah yaa hortaalla ilaahay u fududeeyo taa markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan u dhadhaco dhirtu MCA-geeda hadda waxaan u maleyn nin mas-uula ku jira oo oday ah saad ogtiin nin aad u qiimo badan waaye howlo badan oo dhirtu ku saabsan oo ku shaqeeyaa jiraan laakiin markaan ka hadalno kursi iyo xil hadday noqoto inaan raadino meeshii aan ka doonan lahaa ee ku habbooneed waxaan u maleyn inay dhirtu tahay maxaa yeele tolkeyga qaraabadeyda ehladeyda dhammaan kursi ahaan wixii reer dalal uu u lahaa aqalka hoose baarlamaanka waxaan u maleyn inay meeshaa tahay sidaas laajligeeda horta meesha noogu soo hawooday waxayna dhahaan luuqadda af ingiriiska odaya maxaa la guriga hoose ee bedroomka soo meeshaas waxaan ugu soo hawooday waxaan filayaa tolka degan inay tolkeyga yihiin anigana aan waxba ka waaneynin marka waxaan rabaa arrinta ninka ku jiro yaan waday arrinta ninka ku jiro hadda mas-uulka ah waxaan filaya wax ceeb hadda aan ku ogna ma laha nin mas-uul aad u dhaga nugul shacabka reer dhirtu aad ugu roon dadka xanuunsan ee xaqiiqdii isbitaallada u baahan ee la keeno magaaladan aad oola shaqeeyo aad xagga biyaha iyo maaragtay xagga tacliinta aad oola shaqeeyo nin aan ku ognahay shaqo aad u fara badan inuu hadda meesha ka hayo horta yaa weeyaan waxaan anay u soo hawoodana ma aha ninkaas inaan maaragtay waxyaalo fara badan oo xumaan aan ka sheegahay keliya waxaan u soo hawooday ninkaas wixii horumare uu qabtay meeshii uu gaarsiiyey inaan aniga kasii dhaqaajiyo oon aniga dadaalkeeda muujiyo marka arrintaan waxay ku imaan kartaa walaaladii quruxda sharafta badan ee meeshan wada fadhiyo iyo inta kale ee reer dhirtu ward sida aan ka rajeynayo inay garab ay u siiyaan sifa aan hadafkeena u guul uga gaarno walaalayaal waqti gaaban iyo hadal kooban waxaan filayaa salaadii baan haysaa
hadal fara badan oo maaragta aan ka hadlayna ku saabsan arrinta kursiga dheertu yaa jirta waxaan u maleynaa waqtiga maanta kaliya inta nooma filno waqti badan ayaan raadinaynaa waan soo fadhiisanaynaa sida xaqiiqada rag fara badan oo meesha jooga waxaan u maleynaa one door to door campaign ani waxa la aan sameynayay hadafkan markuu igu dhashay sida aan aaminsanahay hadafkan inaan hadda laba jibaarkiisa ilaa saddex jibaarkiisa aan sii sameyn doonana waan rajeynayaa ugu dambeyntii wax reerka uu ku kala tago ani inaan ka shaqeeyo ma rabo aniga reerka tolkan ka mid ahay wiil la dhalaan ahay reerka inaan kala jibiyo ma rabo midnimada reerka inaan ka shaqeeyaan rabaa waxaan rabaa inaan reerka wuxuu igu taliya qaato haddii reerka uu maanta dhaho kursiga adiga muu mudnid oo nin walaalka ah waa mudan kan ku jira ahaya ku kale ahaya waxaan u maleynay talada reerka inaan qaadanayo inaan aaminsanahay waxaan kaloo rajeynayaa in naxariisna de in lagu fiiriyo oo ninkii niigu horreeyey ee shir niigu ballamiyey magaalada Gaaris oo jamac reer dalal ka shaqeynayo oo shirka isku keenayo maadaama aan nahay in naxariisna lagu fiiriyo oo lala shaqeeyo kursigaas ay lagu taageerana waan rabaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhawaada